wacan oo wanaagsan daawadayaasha nagu xidhan halkani waa Maamuus Media Production. haddii ay tahay markaa koobaad ee soo booqatay channelkan like garee si muuqaalkan iyo muuqaalkiisa xiga aad kaga bogatana fadlan subscribe inoo saar. waad ku mahadsan tahay sida aad noogu xidhan tahay. waxaanu idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha dhanka dagaalka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay inay fashiliyeen miinooyin ay aaseen ururka Al-Shabaab. sidoo kale waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa haddii rab raalli ka noqdo wararka aynu idin hayno maanta xukuumadda oo magacaabaysa guddi ka shaqeeya lacag ururinta ciidamada ku jira furiimaha dagaal. sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalk Soomaaliya oo iyadu ka dalbatay dhalinyarada inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal inta uu muuqaalkan hawada ku jirayo dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor la geysay Shabeellaha Dhexe iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda halkaasi. qodobada iyo qodobo kale oo dhameystiran ayaanu idinkugu soo gudbinaynaa. waxaase aynu ku horeyn doonaa warar dheeraada oo laga helayo howlgallo culus oo ciidamada amniga ay ka wadaan magaalada Beledweyne oo isniinta ay ka dhaceen qaraxyo kaasi oo ay ka gori ama kuwa oo ay ku gooriyeen in ka badan 30 qofood halka 58 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen. howlgalladan oo lagu soo qabqabtay dad badan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin shabaab ama ay xiriir la leeyihiin ayaa haatan ku xidhan xarumaha hay'adaha amniga iyadoo howlgalladan ay bilowdeen habeenkii Salaasada. taliye ku-xigeenka saldhigga booliska Beledweyne Bashiir Cadaani ayaa sheegay inay haatan amniga magaalada adkeeyeen ayna xireen dhanka buundooyinka oo ay ku tuhunsan yihiin inay qaraxyada ka soo galaan. si kastaba ahaatee Beledweyne ayaa ahayd xudunta iyo halka laga soo abaabulo ama laga abaabulo gulufka ballaaran ee ka socda gobolka lana doonayo in lagu xoreeyo deegaanada ay mintidiinta Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaasi. ciidamo ka tirsan kuwa commandoska danab iyo gorgor oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxay gaareen degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe si halkaasi ay uga bilaabaan guluf dagaal oo ka dhan ururka Al-Shabaab. degmo xeebeedka Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa habeeno ka hor ka dhacay ama gaaray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ay horkacayeen xildhibaan Maxamed Cajiib iyo sidoo kale iyaga oo markaasi uga sii gudbay dhinaca deegaanka Xaaji Cali ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ayaa kusii daabuleyso gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la qorsheynayaa in howlgallo ka dhan ururka Al-Shabaab ay ku wajahaan deegaanada Masaajid Cali Guduud, Al-Kawthar iyo saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegaya inay ka go'an tahay in Al-Shabaab guud ahaan laga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe si culayska looga yareeyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee ku sugan gobolka Hiiraan. dowladda Soomaaliya iyo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay wadeen guluf aan iraahday dagaal oo ka dhan ururka Al-Shabaab waxaana ciidanka dowladda iyo dadka shacabka ee hubka qaatay ee Al-Shabaab kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud. dhinaca kalena dowladda federaalk Soomaaliya waxay dhalinyarada ka dalbatay inay ka qayb noqdaan dagaalka ka dhanka ururka. xilli dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay in badan oo kamid ah gobolada dalka ay ka socdeen dagaalo ka dhan ururka Al-Shabaab oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. xukuumadda Soomaaliya waxay dhalinyarada ka dalbatay ka qaybgalka dagaalkaasi. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay inay ka qayb noqdaan kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab. waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dalalka Carabeed xornimada ay haystaan ay qayb ka ahaayeen dhalinyaradooda taasi beddelkeedana ay muhiim tahay in la arko doorka howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. xukuumadda Soomaaliya ayaa wadaa arrimaha dadaalo ku aadan sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii adeegyo bulsho loo gaarsiin lahaa deegaanada laga saaray Al-Shabaab. dhinaca kalena ciidamada deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo saaray miino ay Al-Shabaab ku aaseen inta u dhaxaysa Muuri iyo sidoo kale lambar 50 halkaas oo inta badan ay ku safraan ciidamada dowladda Soomaaliya. ciidamada deegaanka oo kaashanaya maamulka gobolka iyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay sameynayay howlgallo kala duwan kadib markii qaraxiyo miino ay bateen ay ku bateen inta u dhaxaysa deegaanada lambar 50 iyo Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose. war ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa loogu mahadceliyay shacabka gobolka oo markasta muujiya digtooni dheeraada isla markaana wada shaqayn dowlo leh mas'uuliyiinta amniga si looga hortago weerarada Al-Shabaab. dhowr jeer ayaa qaraxyo miino waxay ka dhaceen deegaano u dhow deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose
waxaana dhimasho iyo dhaawaca ku noqday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyada oo mas-uuliyadda qaraxyadaasi ay sheegteen al-shabaab. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ugu yeertay taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan isaaq cali cabdulle iyo taliyaha ciidanka niisa ee gobolka hiiraan colaad dalabey kadib markii lagu eedeeyey inay ka gaabiyeen ka hortegidda weerarada al-shabaab. u yeeritaanka labada taliye ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan uu ku eedeeyey inay ka gaabiyeen wax ka qabashada amniga, islamarkaana dowladda soomaaliya oo ka codsaday in tallaabo laga qaado, waxaana wax laga weydiiyey qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne 3 bishan Oktoobar. wararka warbaahintu ay helayso ayaa sheegaya magaalada muqdisho inuu si degdega ku yimid taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan isaaq cali cabdulle, islamarkaana su-aalo lagu weydiinayo xarunta hay-adda dambi baarista ee CID-da, balse taliyaha niisa colaad dalabey uusan weli soo gaarin muqdisho. lama ogo tallaabada xigta oo ay dowladda soomaaliya ka qaadan doonto labada mas-uul oo magaalada muqdisho looga wacay si lagula xisaabtamo qaraxyadii waaweynaa ee ismidaaminta ahaa ee beledweyne ka dhacay isniintii lasoo dhaafay, kuwaasi oo ay ku dhinteen 30 ruux oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan. dhinaca kalena ciidamo kala duwan oo dowladda soomaaliya ka tirsan oo weli ku sugan deegaanka basra ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa halkaasi ka wadaa howlgallo ka dhanna ururka al-shabaab, iyagoo maanta weeraray deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan argagixisada. dhinaca kale ciidamo kala duwan oo dowladda soomaaliya ka tirsan oo weli ku sugan deegaanka basra ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa halkaasi ka wadaa howlgallo ka dhanna ururka al-shabaab, iyagoo maanta weeraray deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab. ciidanka nisa iyo kuwa harmacad ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyey tuulooyin u dhow deegaanka basra ee wadada xidhiidhisa degmooyinka balcad iyo afgooye, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo al-shabaab. saraakiil ka tirsan ciidamada harmacad ayaa sheegay in howlgalkan ay ku dileen 9 xubnood oo ka tirsan al-shabaab, kuwaasi oo ujeedka howlgalkoodu uu ahaa, balse aysan sheegin khasaaraha soo gaaray dhankooda. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay inay cabsida iska daayaan, islamarkaana ay si toosa uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab. gobolada galguduud iyo hiiraan ayaa waxaa dhowaan ka bilowday kacdoon ka dhana ururka al-shabaab, kaasi oo keenay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee deegaano dhowra ay ka saaraan ururka al-shabaab. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu helinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa gudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan qorshaha gurmadka horumarinta iyo xasilinta ee deegaanada lagu xoreynayo al-shabaab. madaxweynaha ayaa tilmaamay in xaalad adag oo ay ku nool yihiin dadka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi ay markaasi maamulayaan al-shabaab, iyadoo dowladda ay gurmad degdega gaarsiisay muwaadiniinta ku dhibaataysan goobaha lagu xorreeyay al-shabaab, waxaana uu faray dhammaan wasaaradaha in ay mas-uuliyad gaara iska kaashadaan oo ay iska saaraan sidii deegaanadaasi looga fulin lahaa adeegyada asaasiga ee bulshada. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay golaha wasiirada in mudnaanta koowaad ay siiyaan la dagaalanka al-shabaab oo caqabad ku ah dowladnimada soomaaliyeed, wasaaradahoo dhanna ay kaalin ku yeeshaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo in dagaal joogto ah lagu qaaday cadowga duulaanka ku ah nabadda dowladeena iyo madax banaanida wadankeena. ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa instagram-ka villa soomaaliya oo saacadihii ugu dambeeyey aada looga hadaleeyay baraha bulshada la jabsaday kadibna lasoo dhigay muuqaalo kala duwan. bogga rasmiga ee villa soomaaliya ay ku leedahay instagram-ka ayaa laga jabsaday oo laga soo dhigay muuqaalo looga soo horjeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud. ilaa 40,000 oo qof ayaa ku xidhan bogga rasmiga ee villa soomaaliya ay ku leedahay instagram-ka. 2 muuqaal ayaa lasoo dhigay oo uu ka hadlayo qofka jabsaday oo aada u qaylinayo. ninka ka dhex qaylinaya bogga instagram-ka villa soomaaliya ayaa ah mid laga yaqaana baraha bulshada. ninkan ayaa weeraray siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud, sidoo kale waxa uu ka hadlayaa beelo soomaaliyeed. guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen maamuus media production. si macluumaadkan iyo macluumaad kale oo faahfaahsan aad uga dhehataan bartan, fadlan ha ilaabina in aad furataan gambaleelka. marka hore subscribe inoo saar janalkan 1001 jeer. waxaan kaa codsanayaa
in aad inoo subscribe garaysto channelkan si aad u noqoto muuqaal qofka koowaad ee muuqaaladayada gudoomi kara. fadlan gambaleelka furo, like garee, saaxiibadaada ku share garee bogagooda oo aad ku mahadsan tahay.